ugu dul meertaan xoonka markii laxdiisa dhulka ku dhacdo kamana sabrayo man awoodu ku qaadana male wakaas maalintii laga qabsaday ninkaas kamana samrayaan oo talo berbere maxaa ka soo yeedhay bay leeyihin ma la soo daynahayaa mana ka soo dayn karaan waa xoon marka sidii xoon laxdiisii duntaad ugu dul meertaana halkii caajigii lagu daldalay kama dambaysaan garanagu waan idin gubaaminaynaa wax kale idinma dhimayno taas waay ana aan u leeyahay sidiisaba dhulbahantuhu ilan silic ku nool weeye sax waxaan ahayn iyo jinbaa u sawiro guul sareede aan la arag iyo nimcay sacab ku haystaan saboolnimo iyadoo lagu hubay sahay ku faanaan surwaalkoo ka dhacayay dhahaan saajin baan ah sayid dhimay sangana laga baxiyo siisow baa yimid ilaa maanta sayidkii inuu nool yahay u qabaan qaar baa dhihi sayidullah war beeluhu baabuurtiisa baa shaqaynaysa iska odhanaya sayid dhimay sangana laga baxiyo siisow baa yimid suudiga cadceeddaba gurya kama samaystaane suuqi garow way dhahaan sekad anigaa leh haddaad hadda isla meertamay kula qaato ugu dambeyn wuxuu kuleeya garow ana haafle rag baana ku tiirya tacabeelay suuqi garow way dhahaan sekad anigaa leh saasoy tahay majeerteen markuu soo xoraynayo suurtaha ma gelayso iyagaa saf u dhimanaya xabaddii lagu waday cidda haysata iyaga ku dhacaysaa suurtaha ma gelayso iyagaa saf u dhimanaya sababtiisu ninkay geli damba sababtiisu ninkay geli adna wuu ku sahaydaaye 3 beri gadaashoodna way soo wactamayaan suug feeri sababtiis wuxuu yidhi suurtaha ma gelay wuxuu yidhi saasoy tahay majeerteen markuu soo xoraynayo suurtaha ma gelayso iyaga saf u dhimanaya sababtiisu kay geli adna wuu ku sahaydaaye 3 beri gadaasheedna way soo wactamayaan suug iyo saabuun baan qabsaday geliyaan facebook si kastaba ha noqotee dadkani waa un masaakiini subxaanahu u sahal waa islaam seegay marinkii sidoodaas sokeeyaha kalena ha u kala saydhi waa duco qaybtaa dambana ilaahay baan idinku dhaariyey maxay tahay nolosha marka weeyahay ay dhulbahanti gabaygii kale oo malyin dibi ah oo laga mushtaro meelna wada jooga masagadaha dhulkii haddii midho yar loo daadsa miyir ma cunaana geesaha isku mudayaan mid wala midkii kale uu rabaa inuu malyin dibi ah oo laga mushtaro meelna wada jooga masagadaha dhulkii haddii midho yar loo daadso miyir ma cunaana geesaha isku mudayaan mid wala midkii kale uu rabaa inuu muqunshaa masalada ujeedada waxaan uga muraad yeeshay ma og tahay naleeya siyaad way ismariyeen muraayadaha laga daawadaa maalin iyo leeb war ma lay maqlaa waa yahay bareeg baan u qaadanayaae dadku waa dadka malaxdaas ah annana gubaabine war ka kaca war wax noqda war ummadaha ku day war maanta xitaa nidhi war eelay iyo 8 iyo 9 ba ka martabad run darwiish baan ahay xiinfiniin baan fuuli jiray sayidkaan hoos ordi jiray qalcad baa maalin meel laga dhisay يونس waxay u dhaxaysaa Cabdirasaaq ma qabsanaysa aday ku taala ibrahim saabo ku diin kara ha ay wixii ma u baahnay qaadaan iyo maal iyo hadal weeye ya wax dhaqaala ma la garab istaagteen dhaqaali wargeel ninkii lahaa dhacaya yaa dhicin kara ma lagu gaadhayaaba horta baxaaba dhaqaale la isla gaadho wuxuu ku leeyahay saanan okay ku ahayo dunidiiba hantiyay tan iyo hiiraan buu ku leeyahay waxaana maamaan noqotay qofkay ka jilicsan tahay futadaadu buu hadlay ka muuqataa futadiisiyoo qalaalan futadiisiyoo qalaalan oo buu hadla ka muuqata caynaba oo wiilal qayrkiisii waxa weeyaan obiye hadooy dhulbaanta ka carariyey ay leeyihiin buu ku leeyahay
dhulla laygama haysto dadna anaa ugu sarreeya maxaa u qaban karaa anugu marka garowana haaf baan la dabaqa Nairobi ugu dheer garowana haaf baan leeyahay kuleeyahay hoteelka daawad leeyahay anaa leh waa shakhsi hadda halka barxadda garowa suu xaadhi jiray taas intuu lacag ku urursaday hoteelka kaliya ka dhistay meesha weeye ay dee gumaysta gaamuray oo gowska dhigay baa tiino waxa weeye daraawushta maagaysaan niyow ma gaari kartaan waraaxa digta qof kala saar niyow niyow muudgal niyow muudgal muud maaha keligaa wayda qof kala saar uu dhan wuxuu ka sheekeynayay ninkaasi sayidkii iyo waxa weeye guba mar sayidkii uu ka sheekeeyey niyow sayidkii nin miskiina oo noo yimi oo markuu aabayaashii iyo adeeradii ku baxsan waayey iyo reer tolkii abtiyow yidhi buu ahaa abtiyow noogu yimi waa kii lahaa waxaad igu cisaysaan abtow waa cashiirada marka waxa weeye haddeerna isagii baad ku faantaanoo aad waxa weeye meelaha ka sheegtaan tira sayidkaa naga dhashay war ma ninkii aad dayacdeen ee aad soo tuurteen ee ergada intuu idiin soo diray waxa weeye aad muxuu ahaayey 20 nin ku dari kari weydeen aad iskaga cararteen baad muxuu ahay maanta doonaysaan aad taalo jigjiga uga dhistaan ku faantaan te waxa weeye wadaqonnimadiinii un taraawushna anaga ninkaasina ninaanu abtoonahay uu iska ahaayo na dhex joogo gabayada iyo waxaas noo tirtirin jiray markaan marba meel ku duulayno taasi waxay caddayn u tahay dee ninkan uu hadeer sheegayo ninkii halka ka hadlayay hadeer halka ka hadlayay reerkooda waa kii uu lahaa haaruun soo haaruun ma horta ma dusha haaruun xageebaa la geyn buu yiri gumar miyuu dhaafi waa kii lahaa dad iyo dunyo yaa reer subeer dumuq ka siinaya markuu dalaawushta soo diray ee manjagooya laydinku dhigay ee godogooya laydinku dhigay waxa weeye muxuu ahaayey niyow xabashi raac baad ahaydeen nimankii amxaara u kacay sayidkii waxaad ka doorateen xabashi markuu idin laa wari raaca nimankii amxaara u kacay ee adarina u guuray ee mililiq aabba u yahay u arrin qaadayay waa kii lahaa marka waxa weeye waa kii markuu la hadlayay maxamed subeer ka lahaa dhoodiyow haddaan reer subeer lagu dhex qaadsiinin dhalinyarada reer magan haddaan bahal ku dhaylaasin oo aan bah dhuubay waxaad dhaqatay kaa qaadin dhadigoodshaha igu yaaliya dhiigga naagaha markaa sayidkan iyo ma sheegan kartaan anugu waan idinla yaaba markaad sayidkii waxaa ka hadashaan oo sheegataan sayidka iyo qamaan baad ku faantaan qamaanna idinkaa iska dilaysaan maqlay waxa weeye qamaanna idinkaa dilay halkan wuxuu ka sheekeynayay dhulbahantaa islaayay war idinku saad isu gasheen cid isu gasheen ma jirta niyow reer muxuu ahaayey saaqii reer cabdillah kow iska dhigay xabsiga iska buuxiyey horta ma joogaa ninkii ma duushaa ma isku balaminaysaa hadda waa jooga sida wuu joogaa ma joogo ninkaas wuu maqan yahay ma hadda isku balaminaysaa SSC reer Cabdillah reer Isaaq kow iska dhigeen muxuu ahaayey wuxuu yidhi markuu dhumiyey reer isaaq ee dhowrka boqol laayay asagiina laga dheelmi jigjiga oo laga dhex qaad subax wakiil lahaa in ilaa loogu gabiyay ma garad marka waxa weeye niman yow taanaha ka hadlina argari baa qabaal isku laayay iyo waxa isu ka hadlay dadka ma kala garanayo garaad faarax buu lahaa mar dhow war garaad faarax nin ma ahay waa qabiil Soomaaliya iyo maqla dhalinyarada yar meelahan ku kaftanta wax ka maqlaa ayagoo la garaad faarax nin buu ahaa war garaad faarax waa dhulbaahante marka 3 meelood laga dhiga meelahan weey hadda marka adkayso wa ayo qofka meesha soo galay shimbiriya waxaan hadda ka sii deynayaa maxaa meesha keenay ku yahay gube hadda marka SSC oo ma intaan maqnaa buu ka faa'iideystay meesha heebka kuma hayna in dhaweydba waa taan ka haray himiladiisiiye ma hawlin maansooyinka ugu habboonaayo hori waliba goortu tirshaan daayay hadalkiisa ha yeeshee xalun baan hurdada ahaa tufiimiye qaar baa haleeye haddaan minka ka ingaaso heerkan ka maansoonayo baa loo hanweyn yahay iga hooyo waatad baryahan ku halganaydeen habadnimadu waa waxay rag yar ku hunguriyeen niyo gubaan waxaan idinka gibaabinayay nimankii geela idinka qaaday idin laayay inaad iska celisaan welina waad ka cadhaysantihiin haddeer ma duushaagaasi
maalin walba wuxuu doonayaa inuu gabayadii cali dhuux ka jawaabo haddii hadda aad marka waa halyeey yahay guda tihiin SCO adkayso adeer gacali hiidkii ku gaarna marka muudkay galo lagu haddii jawaabo waaye aad muudka gal marka maanaa dhammaystayba muudka gal marka muudka gal miyaad uunsanaysaan waay annagu war kuma muudka tuurayno gal waan uunsanaynaa muudbe muudka gal galmuud marka SCO iska ar waan ku uunsada salaamo xuquuq ma lihida muudka gal war waa idinka baxaya waaye iska uunsada dee hadalka ma muudka xamilaysaa gal waaye dhegeysta marka horta niyahow waxaa adduunyada ugu daran ismaaciil miraa wuxuu yidhi damanaasho nimankaad biday ee doqon ku sheegaysay cawlkii la dabay ee mindida dabaxda loo waayey ee qoday birtii lagu degdhabay kugu durxulay war nimankii aad lahayd waxbaa inta joogiya kanaa doqona eed saa sheegtay nimankii waa ku baabi'iyeen adna iskamaad dareemin baa lagu leeyahay awowga war damanaasho nimankaad biday ee doqon ku sheegaysay cawlkii la dabay ee waa kii u lahaa cawl baa midgaan soo ladgay oo soo gabraarsaday waa qabaan isaga oon wax lagu gowriciyo gaaris gawdhisaba haysan gol xabtiila waa tooridee goray ku noolayd jeenigu gibsiyo ciddadu qodatay gaari adiguna gedi baa toho waasgunaanadii xaqa giigay fedhaha miyaad yaro gufaacooti garaarka iyo faanku sow gobole xeer ma ah tiibaaba adiga kelmaddaa wuxuu u qaatay in ninka habaryoonisoo besa loola jeedo laakiin wixii masaakiin inaneeyaal oo dhan baa loo waday sababtoo kelmadda meesha ku jirtay baa waxay ahayd galti qayliye oo had iyo jeer gamaska uu loolin oo gawrac kaa mudan adna aad gacal walaalays waaye muxuu yidhi marka haddaba goorimaa ugu dambeysay cali kelmad dambe inuu usoo daloco waxaa ugu dambeysay raggii aqoonta u lahaa qofka uu yahay marka ay soo galeen gabayga radiullaahi canhu ilaahu ku naxariiso waa halgamaagii weynaa ee darwiishka ahaa maxamuud axmed cali bidhiidh muxuu yidhi marka baarqab buu ku matelayaa ogaadeen waxaan meesha ka qaylqaylinaya afartan qaylqaylinaya koromo buu ku matelay anna hadda gabaygayga waad maqlayseen samirkiiyo xiniyuhu mar bay libinku siiyaane gabaygaygii ahaa sidii korankii ay sulub dhashay oo baarqabka u siibtay sarmaan iyo intuu oo dulmaray cagaha sii daystay saala badan oo markaas sibirtu dhiigayso siciidka artiga maanta waa lagu masaalaabay isna saan buu ku tilmaamay muxuu yidhi qadla miciye qoolaaban sidii qodax sarmaan jiifta koromada usoo qulub dhistiyo qayrabka u turayo fiiri weligood saan usoo qulub dhisan jireen laakiin markay soo qulub dhisanayaan hadduuna lib iyo darajo wadanin koron buu ka noqonaya wiilka inuu ogaado agtiisa wiilka dhulmaantay laakiin koronku markuu qooqo intuu dhaho oo soo ordo qutub buu markuu baarqabku uu iska yirdaday markuu kusii fatatatataq xaarka sidii wuu dhulmaantaa muxuu yidhi marka qadla miciyo qoolaaban sidii qodax sarmaan jiifta koromada usoo qulub dhistiyo qayrab kuu turayo kolkuu laba ilqooraan si daya kaas qurqurinaya ama yaro qandhuufaba damce ee kolisa soo qaado qalacyadiiyo fajaasada markii uu qam kaga siiyo kolkaasay dhir wada qoofaliyo qodadka jeedhaan wax la qaab ah qudufooyinkan qaaxada iswadhay calow qumayo geedkeed la helay malaha qoomaal afartaas intaan qac ka dayey meel ma qabadsiiyey afar kalena la iskuma qabtee wuxuu yidhi afar kalena la iskuma qaldee aan bal qodobeeyo qoortaada soo dhiga balaa kugu qulaameeyey qulaamin waxaa la yidhaha xooluhu markay biyaha diidaan ama kiniinka la siinaya afka inta loo kala qaada ku qulaami la yidhahdaa qoortaada soo dhiga balaan kugu qulaameeye qamaaciirka kugu fooraraad qurux ku dhowrtaaye qayrooyinkii baan sanaa ku qalcayn jiray qasajajam kaa siin jiray qaamuuska caliyow haddaad dib u qoraal raacdo war qoriiliya kabaalqabad miyaanan adiga kaa qaadin quwad iyo haddaad xoog qabto amase geel qaadi qararida danood iyo maxaad uga qaxdeen caado caynaba maxaa kaa qadshay oo habar jeclo u quudan qoqobkii buhoodliya maxaa docmo uga qayrin intaad qalad gashaabaad haddana ilin qubaysaaye qas walbaana kugu deeqaysaa kii qoftaa tahay qaanjeer waqaa kugu qullida wuxuu yidhi qaanjeer waqaa kugu qallidan yaa quturan meel qamadkuu fadeexada ku simay qaafil oo dhimay ceeb fiiri waa waxan
maalintii taasina waxay ahayd lasoo booray ee ay damceen inay beenta faafiyaan wax raggi joogay ay ogaayeen qorta tanna habar jeclo caddayn ka dhigta qaanjeer waqaa kugu qaanjeer yaa lagu reebaa mataqaanaa wax la kulay sooma qaanjeer waqaa kugu qalidan yaa quturan meel qamadkuu fadeexada ku simay qaafil oo dhimay ceeb laga qashaafaa hadday magac dad qaamayso qumburtii gar adag baan sidii loo qumaatiina calow qumeeyo geedkeed la helay malaha qomal afartaas intaan qac ka dayay meel ma qabadsiiyey afar kalena la iskuma qaldee aan bal qodobeeyo qoortaada soo dhiga balan kugu qulaameeyey ilma qaaji gabadhoodii aad qonaftay ee laacday firi gabadh yar isagoo oo daba socdo habar jecla bay dadku dhulku luqluqa waa lasdaba galaa qonfuu yar lahaa malaha oo lugtiisu baa taabatay gabadhii baa yar turunturootay walaalkeed ba u sheegtay seef baa loo soo qaatay orodkiibuu qabridaar ku galay qurraxay qof dhulba hanti hadduu jiro oo nool ama uu dad leeyahay maxaa uga murmi waaye ama u dhihi waaye war adeera way turunturootay anigu shaqana kumeli haddaad i rabtaana ii yimaada muu odhani wallaahi bilaahi tallaahi ugaasiyada unbay badbaadin karu laandheeraha kuwa jilibada ugu laandheeraysan ogaadeen unbay badbaadin karu yidhi xitaa annaga reer saaq waa na aamini waaye malaha waay sababta annaga ka sokayno orod buu nagu dhex maray soo dhahayo durmaray ilma qaaje gabadhoodii aad qonaftay ee laacday kama quusan cumar qoob garaar qaashna kuu tumay qabri daare tegideedu waa qaanti gabadhii qoraxayna yaa xila qardhaca kaaga dhigay qoyska tar qabaale duulkii qaldamay kugu qasaarooye wixii jeer ku qaabilay gadaal kuu qadarin waa idinkoo qaduuc maanta waa qaduuc maalintaana gabaygan waata way ka muuqataa qaduucun bay ahaayeen qaduuca waxaa layahay qof dhan walba ka guban idinkoo qaduuc hadasho ahoo qowlna isfuraya beenaalayaal ah dad quwaaxiye ruug iyo ahaada car qadhaadhaysan qalab nalagu layn iyo kufrigu dabaqalaal siiyey gaalkuna uu caawiyey iyo wada qaraamaad dhankuu quustarka u buuxshay qushigiina xaajada qalaad eed ku qulusheen quruun cadow ah gaal baad ahayd aan qarsoonayn xawal wuxuu yidhi xawaldaar qurmuuno kolkii aad u qabanaysay qayjima bax kuguma filee kaad u qabaluusto qaaraamaysigaba waxa kuugu wacan qaaracnimaduna waa caydh sabool ah waaya geeri qaaliyaa dhiman haddaad noqotay qaandhuus waayahay qaandhuuska waxaa u taqaaneen ninku darwiish bu darwiishtu waxay u yaqaaneen ninka intuu mar daraawiish ka mid noqdo haddana gaalada u gala geeri qaaliyaan dhiman haddaad noqotay qaandhuuse isku qayrna ma ahayn dadkuya gaal qasaa yimid sababta anagu markaa gaal baan la dagaalamayni kolkuu ina gumeedkii qoslabay gobi qamuumyoone calow qumayo geedkeed la helay malaha qoomaal arrinku ninka muxuu yaqaan wuxuu leeyahay intii hore waad qaylqaylida anaa hadda imidee carbal qaadan ka soo jawaab weeye afartaa intaan qac ka dayey meel ma qabadsiiyey afar kalena la iskuma qaldee aan bal qodobeeyo qoortaada soo dhiga ballaan kugu qulaameeye quwadiya markii uu dhisnaa xoogga qarankaygu daraawiishna qodobkaasu ku cadaynaya muxuu uga murin waa u dhihi jiray dhulbaantaba qaar baa daraawiish ahaa ama daraawiish baanu annaga ahayn quwadiya markii uu dhisnaa xoogga qarankaygu qormana lama soo yeelan jirin duul qayuucsaniye hal tixa nooma soo qori jirin adigii meelaha ka ooyi jiray quwadiya markii uu dhisnaa xoogga qarankaygu qormana lama soo yeelan jirin duul qayuucsaniye qaskan hilibka kaa siin jirnay qalanbe xabxab daraawiish markii awr qalato balaqaa lagu tuuriye leeyahay dhulbaantaha balaqa dabada awrka laga gooyeyo cagafta uu ku socdo iyo maaragtay madaxa iyo baa loo tuuri jiray baraad waaye qaskan hilibka kaa siin jirnay qalanbe xabxab ee waa caloosha iyo xiidmaha iyo mandhirka iyo faranjiga noqorgoynaye qoriga kuu dhiibtay ogaadeenna wada qowracaad qaabka ku hawoone qira iyo laxaad kuguma ogi waad saqarowdeen wixii qoorjar kuu fiiqay ee qurudka kaa gooyey
ee qadafkan kuu geeyey waa ququmo gaal eh nin qarkiiyo qaryaanadii tolkay way qur jarayeen sheekadii qarkaa laga baxshiye quri ciddaah yaali geeli orabo naga qaadatay iyo qolastii irmaanka ilmo raabi kii laga qunsaday ee qurbucu fiigay caliyow wax kama qaadanina way ku qadiyeen